بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المحط لما أنت وحسكله إله سبحانه وتعالى نوسو رجليي حول بدن أو أنو هينو برشة يوم الصوماليات وحاكلو محط وين مدن ملحدة يشقالها شركة بيكو oo habeen iyo maalin heegan oo ah una taagan adeega iyo waxqabadka iyo ka qabtirta korontada bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho. Maanta halkan waxaan ku qabanay laba mashruuc oo mid yahay furitaan mashruuc cusub oo solar oo 12.5 ah iyo dhagax dhig mashruuc cusub oo ah 14 megawatt oo solar ah. Mashruuca maanta aan furnay ee aan ku biirinay ama ku darnay systemka waa 12.5 megawatt oo ku darsamaya mashruucii hore ee solarka ahaa ee shaqaynayay oo ahaa 20.5 megawatt taasoo totalka solarka maanta shaqaynaya uu yahay 33 megawatt oo solar oo maanta magaalada Muqdisho ay isticmaalayso. Mashruuca maanta aan dhagax dhignay oo ah 14 megawatt oo solar wuxuu hordhac u yahay mashruuc ka kooban 39 megawatt oo solar iyo 20 megawatt hour oo battery ah oo aan saxnay bilowgii sanadkan 2023. mashruucaas 14 megawatt ah wuxuu insha Allah shaqo gelayaa oo systemka ku biiraya bilowga ama bartamaha bisha February 2024. qaybta dhiman oo ah 25 megawatt solar iyo batteriga la socda oo hadda degaya ayaguna waxay ku biiri doonaan systemka insha Allah 2024 bisha May. بإذن الله تعالى كريم. total guud ee noo shaqayn doona totalka solarka ee noo shaqayn doona bisha May guud ahaan wuxuu noqon doonaa bisha May 2024 wuxuu noqon doonaa 72 megawatt oo solar ah. ma haddaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa iskale. shirkaddu waxay u jeesatay inay ka faa'iideysato tamarta cadceedda ee solarka taas oo arkaysaan hadda inay wax weyn qabatay sanadaha soo socdana ay wax weyn qaban doonto. mashruuca solarka aan rabno inaan fulino sanadaha soo socda 2024 dhamaadkiisa iyo 2025 2026 2027 waxaan rajaynaynaa inaan fulino 150 megawatt oo solar oo cusub oo aan ka fulin doono koonfurta magaalada Muqdisho biidnillahi ta'ala kariim. taasoo horumar weyn oo u soo kordhay dalka iyo dadka. haddii aan wax yar ka iraahdo maxaan u fulinaynaa mashaariicdan solarka ah waad ogtihiin korontadu inay qaali tahay lafdhabarta dalka iyo dadkana iyo ummadda iyo horumarkana ay tahay korontadu. arrintaas qaalinimadaas oo ay sababtay mashaakilaadka iyo dhibaatooyinka ka jira adduunka iyo isbedelada ku imaanaya adduunka. si aan taa uga gaashaamano waxaan u wareegnay inaan ka faa'iidaysano tamarta cadceedda waxaana rajaynaynaa oo ugu bishaaraynaynaa macaamiishayada sanadaha soo socda ee 2024 dhamaadkiisa ama laga bilaabo 2025 inaan samayn doono qiimo dhimis gradual ah. waxaan la qiimo noqonaynaa ama wuxuun ka hooseyn doonaa wadamada deriska ah sida Kenya oo kale insha Allah taasoo noqon doonta kacaanka cusub ee isbedelka dalka iyo horumarkiisa oo imaan doonaan warshado badan oo imaan doonaan horumar badan oo dadka ganacsigooda ku soo kordha insha Allah iyo isbedel weyn oo ku yimaada insha Allah dhaqaalaha dalka iyo dadka. bi'ada wax weyn ka qaban doona biidnillahi ta'ala kariim maadaama aan solarka wareegnay oo aan rabno inaan dhinno fuelka iyo wixii la xiriira oo wasakhayn kara hawada waxna u dhibi kara. waxaan mar labaad u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo soo geliyay projectyadan socda iyo guud ahaan shaqada aan dalka iyo dadka u hayno. waxaan mar kale u mahadcelinayaa shaqaalaha heeganka 24 saac ee u shaqaynaya dalkooda iyo dadkooda. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan mas'uuliyadda aan qaadnay ee korontada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho aan wax weyn ka bedeli doono sanadaha soo socda
الله كاشانينا دلك يدتك إن شاء الله خير بدل ما دير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.